waxaad tiri aylo waxaan ka rabaa 300 iyo wax adigu 195 baad bixinaysaa there is still deficit baad ku jirtaa 500 kun oo kale dheeri aad u baahan tahay businesskaagu si uu rangaroobo haddii ceel hore aan lahaa inaan ceel labaad helo matoor haddaan lahaa inaan matoor helo maadaama expansion beertu ay ballaaranayso maxaa idin diiday qof khibrad leh oo waxaan u taqasay inaad shaqaaleysaan mid weeyaan idhe waxa la yiraahdaa inaan sameeyo TikTok iyo meelaha beerta iyo saraca inaan ku xayeysiino iyo Facebook iyo meelaha waxa laga rabaa meesha wax ku maray hadda ka hor waxaad ka shaqeynaysaa maxaad ka faa'iiday maxaa wax ku yaala xageed wax marinaysay halkan waa mar aan ilaan beerley baan ahay aan xawb soo saari sometimes meelaha qaarkood markaad eegto dhanka faa'iidada kale iyo calculation ka waxyaabo badan baad muddo inay ka yar khaldan yihiin oo meelaha qaarkood laba kun baa ku qoran sida iibka oo kale waxaad moodaa midda kale future forecasting markaad ku jirtay يعني مركز قيمين سنة كذا إن بقول ساعتين صارت وحين وياهي كاش كروب كيو سنة كسد احتيار بحكرة يدا لفتجد وحن كلية ولو بيس أنا normally بروفيش كي جماعها agriculture أنا واحد وين engineering لما أنا تيك توك يو فيسبوك ده تروح وصور حاجة شو كيف هي دونت لما هي الاستراتيجية ده كوجل هي سه ده كاسر وكلها تطمع يسو خسارة على الجل هي ده كاس جلين هاد كيف بتبادل يسو iyada noo sheegto goobahan macaamiishu ku leenahay kala waxa kamid ah ee nooga iman karaan macaamiishu deegaanada jaarka ee diradhabada ugu dhowdahay harar aywa habgeedi shirkadan aga 65 iyo founder same time working on runtii inta badan deegaankeena waxyaabahan xoog saaray waxaa ka mid ah waa beerta inaan xoog saaro ama wax soo saarka beeraha sababta bulshadayda inta badan waa iska xoolo dhaqato qaar badanna waa iska ganacsato beeraha sectorkaas inuu aad aan wax looga qaban u baahan in wax laga qabto wax soo saarka dhankaa yaan aaminay saa darteed baan u aasaasay sanadkii tegey oo in badan soo daala dhacay oo wax badan ka soo bixiyey fursadda in competition kana jirana aan ogaaday kadib aan proposal xariistay si aan u qaadan lahaa expansion balaariyo taasoo u baahatay inaan dhaqaale geeriya iyo input geeriya uga baahatay saa darteed baan competition soo xariistay guud ahaan waxay wax soo saarka deegaanka aad baan u baahanahay deegaano kaloo jaad oo competitor badan oo aan leenahay laakiin still deegaankeenu haddii si kasta ay competitor u jiraan baahida xagga damaanadka cuntada aad iyo salaaray maadaama deegaanku wax la isticmaalayo tahay at the same time waxay sidoo kale waxyaabo loo baahan yahay daruuri ah anigu hadda beerta waan beer baan beeraa kadib wax soo saarkii baan waxaa ama goobtaan igu manayo ganacsataa iibsanaysa amaba anaa suuqa keeniyo xaarada keeniyo laakiin waxay u badan tahay in beerta la iibsado laakiin wax soo saarku hadday dhacdo in suuq la-aani dhacdo xilli uu soo go'o dalabka haddana suuqa yar iibaa waxay noqonaysaa inaan suuqa usoo qaado taasoo keenaysa beerta in laga shaqeeyo shaqaaluhu noqoto abuuritaankeeda goynteeda sidoo kale lood aan loo waxay jiray in la soo raro ama laga dejiyo intaaba waxay keenaysaa inaan bulshada aad wax badan shaqaaluhu noqoto marka loo yimaado environmental assessmentiga inta badan waxaan ognahay in oxygenka soo deyso carbon dioxide deegaanka ama carbon dioxide ka qaado oxygenka ay soo deyso at the same time beertani waa ahaa beer aan seasonal sugayn waxyaaba xilli rooba dadka waxaa jira xilli roobaad keliya wax beera laakiin halkan waxay ka duwan tahay sanadkii 2 jeer hadday suurta gasho 3 jeer inaad beeri karayso adoo isticmaalayo ceel macmal oo gacan lagu sameeyey oo matoor soo fanay taasoo keenaysa in maxaa looga jiray uu deegaanka marka sanadkii inaan 3 jeer ama 2 jeer soo saaro taasoo ku salaysan roobka roobka ku xirnayn
oo la beerayo sanadkii 2 jeer 3 jeer iyadoo dalagga nooca dalagga la beerayo markii la beerayo kale waxaa loo jiray basasha oo kale 2 jeer in noqoto laakiin marka la beerayo xabuush iyo qajil oo kale ayaa sanadkii 3 jeer ay noqoto marka waxaa jira amfadi arrimaha jiray gaabka ama suuqa maxay badeecadu gaabka ay buuxinayso badeecada sida guud ahaan sharaxa ku muuqata badeecadu waxay noqon doontaa soo saar gaabka oo sida aan sheegaa taasoo leexay dhibaatada ay dabooli doonto badeecadu maxay xalin doontaa waayo waxaa jira deegaanada kale waxaa laga keenaa qudaar kale deegaanada fogfog kale taasi waxay keentaa marka in inta waddada kusoo jiraan ay qudaartaasi ama quruto amaba de waxyeello ay soo gaareen taasoo marka deegaanka la keeno waxyaaba loo baahan yahay dadku isticmaalaan xanuuno keeni karo taada kale haddii ay rabshado dhacaan deegaanada kale qudaartii loo imanayso kale waxay ku dhacaynayaan ay la soo gaari weydo marka ay magaaladu bilaa xanuun bilaa qadsi bilaa maxay noqoto taana inaanu xalino meel deegaankeena ka tirsan oo rabshada looga baqayn inaanu ka beero sidoo kale waxaanu ognahay oo nagu gacanteena kusoo saaray oo tayo leh inaanu suuqa keenno variety aan keenayo inuu noqdo variety ka fiican varietyada kale in terms of size in terms of quality marka dhibaatada inay dabooshaan u talagalay sifada badeecadu inay lahaato sifada badeecadu ay noqoto mid hagaagsan oo tayaysan sida halkaa ku xusay cabirkeeda iyo qaabkeeda shape and size baa lidaa inta badan waxaa jirta badeecada soo saara ama wax soo saarkii hore yaan la wadaagi doonaa marka badeecadu waxay noqonaysaa tayo ahaan quality ahaan iyo quantity ahaanba la xaqiijiyo aad u fiican inaanu suuqa soo gelino siday bulshada iyadu baahiyaha ay qabaan aanu xallin karo goobaha aan macaamiisha ku leenahay oo kale waxaa ka mid ah ay nooga iman karaan macaamiishu deegaanada jaarka ah ee daradhabada ugu dhowdahay harar sidoo kale aniguna productiga inputka waxaanu ka helnaa inta badan waan fiicano deegaanka meesha aanu ku noolno meel fiicano istaraatiiji ah marka xaggan Etoobiyadana waa marka uu doono wixii jaban oo quality waa u doonan karaa xaggan wajaalena marka aan helo fursad ka jaban ama ka tayo fiicana inaan u doono sida seedka oo kale iyo dawooyinka qaar inta badan dawooyinka xagga sare ay nooga yimaadaan Etoobiyada aanu ka helno waxaa kaloo jira tartamayaal waxaa jira badan beeraha waa la beertaa sidii horama bulshada soo baranayaan marka waxay ka dhigantahay dad badan baa wax beeranaya tartamayaal badan baanu leenahay laakiin waxaanu kala duwanahay iyaguna waxay naga duwin baa jira tusaale waxa laga yaabaa inay leeyihiin dhaqaale xagga jeebada inay garoon yihiin taasoo keenta iyaga strengthskooda inuu noqdo laakiin aniguna anoo tageeyda ka duulayo idhe waxa la yiraahdaa inaan sameeyo TikTok iyo meelaha beerta iyo saraca inaanu ku xayeysiino iyo Facebook iyo meelaha taasoo keenaysa inaan iyaga intayna suuq helin ka hor inaan anu connection aanu helo marka qiimaha la eego shayga qiimaha intaanu samaynin ka hor beer anu waxay waa product waxba iga gala input baanu gelinaa si ashdaal seed shaqaale dawooyin yaanu gelinaa taa inaga oo qiimaheena eegayna yaanu suuqa daraasaad samaynaa daraasaadka suuqa jeebadaha dadka macaamiishana waxaan jeebadooda iyo awoodda ay leeyihiin sidoo kale tartamayaasheena suuqa maxay ka siiyaan annagoo inta oo dhan eegayna kadib waxaanu go'aansanaa suuqa qiimaha aanu suuqa ku soo gelin lahayn goobtu sidaan idiin sheegay waa dhagax leh beerta aan wax ka beerayno budget summary waxaan ugu talagalay wixii aan anu guud ahaan waxa weeyaan budget summary aan wuxuu sheegayaa expansionka aan samayn doono expansionka maya beerta waan ballaarinayna markaanu ballaarino maxaan u baahanahay waxaan u baahanahay marka lacag ahaan baan ku cadeeyay qaybta aan uga baahanahay ILO iyo Hansi baan ku cadeeyay iyo qayb wixii awoodeed iyo familkayga baan halka ku cadeeyay marka waxaan si jajabiyeen kale waxyaabahan Hansi uga baahanahay ama ILO uga baahanahay yaan cadeeyay waxaan idhi wuxuu dhan wixii aan u sii haystay meena wax dheeri ah haddii ceel hore aan lahaa inaan ceel labaad helo motor haddaan lahaa inaan motor helo maadaama expansion beertu ay ballaaranayso deena wixii input la gelinayana inuu complementary noqdo oo wax iyada u qalmo u noqdo ayaan waxyaabo adu afar shay baan ka codsaday
afartaa shay waa matoorka ceelka tuumbooyin iyo kirada iyo dhulkuna waa kiro goobta waa goob inta badan ganacsiga oo dadku dhulku kiraystaan taasina waa taa marka loo yimaado saadaasha dakhliga formaadkana la siiyo inta badan wuxuu ku salaysnaa sanadle formaadkana waa haddaad aragtaan formaadka hadda aad haysaan dadku waa ka siman yihiin formaadka taasoo ay diyaarisay qoladan consultant uu diyaariyey marka dalaga aan beero maadaama afar jeer noqonayo dhulkana waxay noqonaysaa in dhulkii la tashiilo sarac fiicanna ka soo go'o qaabkaa waa qaabkii beerta noqonaysay halkan waa mar aan ilaan beerley baan ahay aan xawib soo saaray ganacsi wuxuu soo jeediyey qorshe qurux badan laakiin waxaad moodaa sometimes meelaha qaarkood markaad eegto dhanka faa'iidada oo kale iyo calculationka waxyaaba badan baad moodaa inay kaa yar khaldan yihiin oo meelaha qaarkood laba kun baa ku qoran sida iibka oo kale waxaad moodaa midda kale future forecastiga markaad ku jirtay yacni markaad qiimeynayso sanadka dhan inaad 100 saajin soo saarto wixiina uu yahay cash cropkii oo sanadkii 3 jeer bixi karo iyada laftigeedu waxaan ku leeyahay waa low base oo haddii la yidhahdo waxbaa la soo saaraya dee 100 waxa soo qaada 2 izuzu 100 mise hal izuzu baaba qaadaba izuzuga malaha wax ka badan qaada 100 xabaan marinaya marka halkaas horta way yar tahay arrinta kale waxa weeyaan waxyaabahaadan cadayna waxaa ka mid ah kharashka kugu baxaya waa 700 iyo wax weeye 700 iyo wax weeye qarashku haddaan khaldanayn waxaa tidhi aylo waxaan ka rabaa 300 iyo 9 iyo wax adigu 195 baad bixinaysaa there is still deficit baad ku jirtaa 500 kun oo kale dheeri aad u baahan tahay businesskaagu si uu rangaroobo iyaga laftigooda maada isbisaayo gareena cidaad ka helaysa 500 kale waayo waa kharash dheeri oo kugu taagan oo haddaan la helin qorshihii ganacsigu ka mid yahay shaqadu ma dhaqaaqayso waxaa kaloon caddayn structureka waxaad qaadatay waa adiga iyo waardiyayaal baa tiri nin hal qof oo maamulo ah iyo waardiyayaal oo aad ku qeexday waxaad tiri structurekayga waa aniga iyo waardiyayaal dhowr qof ah kuma jiraan beerahana waxaan ognahay khabiira waxaa u baahannahay technical expertise fara badan sidoo kalena adiga professionkaaga inuu kuma cadda meesha oo adiga laftigaaga khibradaad u leedahay ganacsiga iyo agricultureka noocaad ka tahay iyo waxyaabahaasina aad uguma cadda iyaga laftigooda inay caddaanaa bay filan lahayd su-aalaha kale waxaan u dayn asxaabtayda wax fiican baad soo jeedisay laakiin waxaa laga yaabaa financing marka loo yimaado resource la-aan shaqana ma dhaqaaqdo laakiin still waxaan u arkaa business plankaagu inuu deficit ku jiro ayna caddayn source of revenue meelaha lacag dakhliga ka heli karto maad noo sheegi kartaa qaar ka mid ah tartamayaashaada oo sida formaadka liisii ku cad maadan kala saarin waxaad tiri goobta beerta waxay ku taallaa dhagax leh laakiin proposalkaaga kuma caddo jigjiga markaad soo gaarsiinaysa storekaaga iyo wixii meeshaad kusoo bandhigi lahayd waxa soo saarkaaga kuma cadda tan kale waxaad ka shaqaynaysa kolley waa saan qiyaasaya inaad waxyaabahan qudaarta iyo waxyaabaha loo baahan yahay inaad magaalada keento dhinac markaad eegto waa fursad aada u ballaaran oo baahideeda taagan tahay weliba xilliyada ay saameeyaan conflictiga xuduudiyada jigjigana ay aada ugu baahan tahay dhinaca markaad eegto laakiin ganacsi ahaan waa trade oo caqabad bay kugu noqonaysaa waxaad ku garanaysaa shirkado waaweyn 22 sano ka shaqeynaya suuqan iskaashatada qaarkood public enterprise oo dawladda leedahay dhinaca dawladda baa maalmaha fasaxa laga yaabaa inay soo keenaysa waxaanad ka shaqeynaysaa ay soo bandhigaysa iyadoo weliba qiimo jaban ku bixinaysa marka caqabadahan dhan ka hor yeela adigoo fursadina arkaya market istaraatiijiyadda aad ku maareynaysa maxay tahay su-aasha kaloo adkeynaya waxaa weeyaan structureka xirfadyaalkii waxaad tiri shaqaalaha beerta tiri shaqaalaha beerta waxaa laga yaabaa inay yihiin xoogsatada kuuliga ahee aanan aqoonta iyo xirfad waxba u lahayn laakiin kuma cadda agriculture in maxaa la yidhaha xirfadeeda qof iskale in meesha lagu soo daro way fiicnaan lahayd tan kale labor costiga
budgetka labor costigaaga waxaa tiri 4,000 waxaa weeyaan lix qof oo min 4,000 ah taasoo ka dhigan 60,000 so 60,000 7.6% ka tahay bay ka dhiganta dakhliga soo ma waxaad tiri beeraley soo shaqeynaysay baana waxaa lagaa rabaa meesha wax kuu maraya hadda kahor waxaad ka shaqeynaysay maxaad ka faa'iiday maxaa wax ku yaalla xageed wax marinaysay midda kale saan ka war hayno suuqa beeraha ama khudaarta baan dhaho waa jaam aad buu jaam u yahay shirkado waaweyn oo in badan kasoo shaqeynaya baa jira dad maxay ahayd ay muddo dheer ka shaqeeya Soomaali ah jiro oo shakhsiyaad ah Oromiya bay haddana ka tibaadaa inteeda badan 9% dad badan oo suuqan gala oo ku khasaara jira oo aad ugu rafaada iyadoo dadkii khasaarayaan ka shaqaysanaya haddana suuqii markasta khudaartii iyo waxaan qaalibi ka yihiin waa dhibaato taagan oo xaqiiqatan haddii aad ka xalinayso loo baahan yahay laakiin adi laftaadu maxaa ilaa hadda kuu qabsoomay haddii aad ka shaqaynayso suuqan saad ku gelayso ilama aha inaad TikTok iyo Facebook intaad suuqa kusoo dhex gasho inaad ka faa'iidi doonto ilama ahe bal istiraatiijiyada aad ku gelayso ee dadkaas oo kula tartamayso khasaaraha la gelahayo dadkaas galeen aad kaga badbaadayso inaad iyadana noo sheegto halkan waxaa kugu qoran shaqaalaha oo 6 qof ah iyo waardiyaha oo 6 qof ah marka maxay kala yihiin taana cadayso xisaabtana kulli calculation-keeda wax badan baa ka khaldane iyadana dib ugu noqo insha Allah marle waa la dhameeyay su'aalaha badankooda qayb su'aal Ibrahim ka timid baan sii xoojinaya anigu saan ognahay baa horta kuma xusnaa qayb agriculture ama horticulture qof oo takhasusay meesha shaqaalaha ka mid ah waxayna u baahan tahay khudraddan marka la beerayo in cayayaanka laga laayo cayayaanka layntina waxay u baahan tahay dee qof chemistry yaqaano u takhasusay sun baa imanaysa hadday badato dadka laftooda ku sumoomaya ama deegaankii baa ku soo maxaa idin diiday qof khibrad leh oo waxaan u takhasusay inaad shaqaaleysaan mid weeyaan ta kale Ibrahim sheegay badanaa dee jijiga waxay u khudradu ka timaadaa xaggan sare xagga Oromiya qorshahagana waxaa ka mid ah inaad badeecada ay dadka macaamiisha ay ka imanayaan jijiga gartay laakiin baabili iyo harar iyo dir dhaba inagoo og badasay harar iyo dir dhabiyo ay ku yihiin suuqii weynaaye qaybtii herno oo kale iyo erar baan u jeedaa ay joogto balse macaamiishaan u soo jeedaysa ma qiimo jaban baad samaynaysaa maxaa balse u soo jeedaysaa naga dhaadhictaan waan isku day insha Allah qaybta waxaan ugu horeysiinaa ustaadka sidoo kale calculation-ka waxa laga yaabaa Excel baan ku diyaarinay wax khaldamaan laakiin ujeedku waxa weeyaan in lacagaha aan anigu doonayo almost 50% aniga iyo family anu isla ay qoran tahay iyaan isiri mana qaabka u dhigan tahay ayaan la fahmin tusaalahan waxay tusi karaa qaybta lacagta guud ee doonaya waxa weeyaan 782,000 390 aniga ah samariga صح marka waxa uu la jeeday 391 iyo 190 waa aniga iyo family-kooda isu geeyay ay loor waa inta waxaan ka codsanayaa kontonka kale tirada isu eg laba meelood weeyaan marka shaqaalaha ii shaqeeya waxaa ka mid ah dad beeraley soo ahaa wax buufina kara beerina kara oo khibradna u leh in wax la beero transportation-ka aan jigjiga ku soo gaarsiin karo transportation kolba waxay noqonaysaa horta meeshu waa meel uu gaari geli karo beertu marka taasi waxay iga caawinaysaa inaan haddii ganacsiyaal ay yimaadaan access-ka marka inay easily ku helaan haddiise ay iman waayeen anigu soo raro tartamayaasha of course tartamayaal fara badan baa jira oo igana jeebroon
tartamayaasha waxaan iyaga aan kula tartami karaa waxa weeyaan waa ta koowaad oo anigu inaan badsado connectionka la xiriiritaanka aan la xiriirayo dadka ganacsatada wax iibsada beerleyda wax ka iibsada inaan la xiriiro sidoo kale ma aha kaliya jigjiga iyo aagan gobolada dadka u baahan inaan la xiriiro intay suuqa bakhaar ka qaadan lahayn intay anigu i yimaadaan bay halkaa inay ka qaataan waa sidaan hore usoo samayn jiray استراتيجي نوع استعمالية expertise dadka expertise horta dad expertise oo macnaha agricultural ka soo qalin jibiyay ima shaqeeyaan laakiin waxa jira dad shaqaale Itoobiya sare ka yimid beero soo beeri jiray xirfad aad u fiican leh laguna najaxay ku shaqeeya hadda aniga ii shaqeeya weeyaan anigu normally professionkayga ma aha agriculture anigu waxa weeyaan engineering weeyaan background-iga laakiin sector-ka inuu banaayay marka arkay engineering waa loo adeegsan karaa waxyaabaha engineering waa problem solving baa dhibaatooyinka taagan inuu xalliyo at the same time in aan siiro teknolojiyada biyaha qaabka loo xiriiriyo sidoo kale qaabka terracing ama qaabka loo qodo anoo ka faa'iideysanaya khibradda inaan dadka kale ee shaqaalahayga ee beerta ku takhasusay aan la kaashto buu ahaa qorshaygu inkastoo hadda aan islahayn ilaahay iga hayay wax khasaara baad kala kulantay mar baan sigtay oo daad bay soo galay aan filayn xilli sanadkii hore laakiin saameyn saa u weyn ima gaarsiin inkastoo ustaadkana su'aal waxa jirta oo kale diridhaba basasha variety-ga qalafaa laga beeri jiray haddii aad garanaysaan variety-ga Itoobiya aad uma beerato dhulka Itoobiyana inta badan ma support gareeyo oo carrada cas iyo carrada xoogaa yar ku badan yahay maxaa la oran jiray bahalkii iyo ka baxaa taasoo keenaysa inuu deegaankeena loo soo doonto inkastoo imka ay bilaabeen meelaha canfarta oo kale dhulka kulaylaha in laga beero meelaha qaar laakiin still mar waxaa jirtay bahardhaar looga iman jiray oo dhagax laga soo doonin jiray dirdhabadan dhow baanu ka shaqeynaa laakiin marba waxaa jirtay in looga yimaado xagga maadaama variety-ga la beeriyo dhul kulaylkan laga beeriyo uu ka duwan yahay variety-ga Itoobiya sare laga beero faa'iidada hadda ka hor aan anigu ka faa'iiday waxa weyn oo ka faa'iiday horta waa khibrad iyo dhaqaale inkastoo beertu iyadu dib loogu celcelinayo haddana aan isleeyahay goolkayga weyn aan leeyahay baa waxay tahay inaan aad u ballaariyo deegaankeena meel dhaafsan aan gaari karo deegaanada ka baxsan ama dawladaha jaarka la inaan gaari karo yool noocaas aan leeyahay haddii la yiraahdo muhiimadda hadda aan meesha ugu jiro waxa weeyaan in sector-ka dadku u badnayn tartamayaalba hala haata laakiin baahideedu aad u sareyso deegaankeenu aad looga baahan yahay deegaanada jaarka even haddii loo baahdo tartamayaasha deegaanku ay bataan kuwa dawladaha jaarka nala ah Somaliland iyo Puntland inaan u geyno weeyaan qorsheyn mustaqbaleed haddii la yiraahdo marka I hope waxa laga yaabaa su'aalaha qaarna aan ihdoofay sidaad rabteen inaan ugu jawaabi waayo waa macquul laakiin waxaan isleeyahay su'aalaha waxa ku jira khibrad leh caafimaad oo khudaarta qaabsan maxaa ku adeegsan expertise-ka aan sheegay waxa weeyaan dad waxaa jooga Itoobiya sare ka yimid basasha iyo xuurta sida loo beero yaqaano at the same time shaqaale kale waxaa jira shaqaalaha halka ku xusay waxa kamid ah inkastoo shaqadooda aan ku xusin waa dad wax buufiya cayayaanka markuu yimaado garanaya dhirta markay si bedelayso intaan cudurku ku dhicin saameynta ay symptomka ay dhirtaasi leedahay si garanaya kadib dawooyin baan u adeegsanaa agaas haddii inagu naga baxsanaatana dad kale oo agriculture-ka amaba asxaab ahaato ama dad kale oo noogu horreeyay ahaato marnaba waan la kaashanayn waxaa dhacda inta badan productiga markuu soo go'o waxay qasab noqonaysaa intuuna go'in ka hor in market assessment la sameeyo qofku wuxuu sameynayaa market assessment kadib suuqii wuu soo eegayaa macaamiilkii la soo xiriirayaa ciddii uu iibin lahaa kadib buu ku imanayaa inta badan waxaanu goynaa beertaba marka aanu macaamiisha la soo xiriirno contract-iga helno iyagu ay diyaar yihiin baanu inagu maalin hiblaayo ballaminaa deena maalin hiblaayo iyada oo xidhan oo package-kii samaysan bay imanayaan oo qaadanayaan ku xidhnow lana wadaaga asxaabtaada faalladaadu waa muhiim Dagara Media waa saaxiibka dadweynaha